mid ka mid ah buundooyinka waaweyn ee magaalada Burco maraha ayaa in muddo ah xirnaa kaasi oo ay waxyeeleeyeen roobab dhawaan ka da'ay magaaladaasi waxa ayna saameyn ku yeelatay socodka gaadiidka iyo waliba dadka sidoo warkaasi inoogu soo diray waryaheena Cabdirashiid Ilkaase daawadayaal sida idii wada muuqata kan waa mid ka mid ah biriishada halbowlaha waa magaalada Burco isla markaasna muhiimad gaar ah u leh socodka gaadiidka iyo ganacsiga magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer waxaanu xidhan yahay ku dhawaad mutabila kadib markii dhaawac xooggan ka soo gaaray daadad ka soo rogmaday buuraleyda Golis kuwaas oo waxyeelo u geystay cagaha uu ku taagan yahay biriishkaasi waxaanu saameyn laxaad ku yeeshay gaadiidka oo kala goosha xaafadaha iyo suuqyada magaalada waxaanu sidoo kale gabi ahaanba ka saaray meesha gaadiidka xamuulka qaadi jiray kaas oo si gaar ah uu saameeyay gaadiidka yaryar ee loo yaqaano bajaajka kuwaas oo ah kuwa lagu isticmaalka badan yahay waqtigani waxaana waqti xaadirkan maran maadaama biriishku xidhan yahay bartamaha toga kaas oo leh dalcado aad u dhaadheer oo dhibaato badan ku haya gaadiidka anagu waa gaadiidleyda bajaajta oo ka cabanayna wadadii biriishku nala furwaayo cidana waxba ka qaban in muddaana naga xidhnayd boo annana aan ku cadbanay togi oo xataa noola hagaaji waayo qaar ku daateen oo xataa dad ku dhaawacmeen yaanu ka cabanaynaa oo maamulkii gobolkuna aan waxba ka qabanaynba biriishkina iska xidhan yahayba sabab u xidhan yihiin aanaan garanayn ilaa alaankaa waxaan ugu baaqaynaa maamulka gobolka haysta iyo mas-uuliyiintaba inay si degdega biriishka noogu furaan haddaanu nahay gaadiidka iyo shacabka qaba BL baanu shacabkaan u shaqeynaa meesha ma mari karno anagu saadaradeed waxaan ugu baahanahay si degdeg ah ku furo biriishkan waanu ku dhibaatoonay hadaan nahay gaadiidleyda khaasatan waliba gaadiidka ganacsiga ee yaryar ee tigaha waa in wadadan ama naloo furaa ama wax laga qabtaa biriishka waa iska xidhan yahay shaqa kama socoto dawladda waxaanu ka codsanaynaa iyo maamulka gobolka inay dadka hoos u eegaan oo dadka xaafadii waa kala xidhan yihiin dadkii danyarta ahaa ma socon karo dawladda waxaanu ka codsanaynaa iyo maamulka gobolkaba inay si dhaqsaa biriishka noogu furaan haddii uu wax weyni jiraan ummadda in loo sheego oo la yidhaahdo waxaas khasaaraha noocaasa ayaa dhacay intaa ayaan dawladda gaarsiinaya ta kale waxa weeye wadadan waxaa iska hor imanaya kuwii soo labadii haad dhirtii baa ku baxday wadadan lafteedu haddii taasi xidhan tahay intan dawladda hoose si fiican nooga shaqayso ayaan codsanaynaa halkan waxaan ka salaamayaa warbaahinta Royal TV oo aad u mudan oo dhibaatada ka taagan wadadan iyo dixdan baryahan banaysatay waxaan ku caabanaynaa wadada dixdo karaahiye nagu haysa gawaadhidii naga burburtay oo aan in biriishkina loo furo naga haajiyo si ugu dhaqso badan loo furo ayaanu ka hadlaynaa marka waxaan u baahanahay sida ugu dhaqso badan golaha deegaanka iyo odayaasha deegaankuba inay ka hadlaan oo wadada laga shaqeeyo oo deegaanka iyo dadkaba loo turo oo dadkii iyo gawaadhidii dhibaato ka haystoodii ka arka wadada gawaadhidu dib ay ku soo noqonayaan ku burburayaan gaadhigu iyo dadkuba digada ay noqonayaan marka waxaan ugu baaqaynaa dadweynaha iyo madaxweynaha in laga qayb qaato wadada la hagaajiyo aan nahay gaadiidleyda Burco waxaan ka hadlaynaa biriishku wuxuu xidhay ilaa iyo intii daadku maray maxay tahay sababta loo furi leeyahay biriishkan uga dhacayna jambiyada iyo habeenii maalin meesha naga galaato goosan qiiqa ka saarnaa marka sababta loo furi leeyahay biriishka maxay tahay maamulka Burco ma xagga dadka la xanibaya ma lacag la'aan baa jirta waxaan leenahay madaxweynaha marka bil baan ku cadibanahay biriishka yare haddii lacag la'aan jirta naloo furo Cabdirashiid Maxamuud Ilkaase wararka Royal TV Burco